السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين عشاكين وإلهي ما هدي أنا سكسو لابني مر لباد إيو مر سدحاد إيو مر بدن رمضان كريم أصحابي وحاما تعطي أن أقود قلن برنامج كينا هدي أدشنا لكو عصب تهي سبسكرايب لايك شير وحقاقا وحي أنا ما أردت سو أركن إنان إذن نسو ذاق وحقاقا عاد بدو ما هدسنتهين أصحابي هاد كهر أرين عن كهذلي بمعنى والبوحي يلنيسا وجه عصب أو أن الفيلين بمعنى كستا صباحية أصحابي هاد كهر غار بدن أو إذن كمد أحدا وضياشيد واد يقصو أفلقاديسين هذا لحوم بعد يسو قرتين بلس وحاس أنو ما أركتي وحان كأهي ما أركتي كسلين وحبا ما أركو فكركينا waa muhiim فكركينا anigu mar walba muhiim buu yahay ila soo wadaaga haddaan idin leeyahay biritaan idin leeyahay waxaan arko wixii fakira oo ka dhiibataan welcome waxba kama qabo iisoo sheega iska soo caytama isoo amaana waa xageena balse aniga iigu imaada hadallo run ah oo saxiix ah oo loogu soo gambanayna geed ka daawo channelkayga halaas aan rabaa inaan idin sheego maanta arrintii ayada ahayd oo baryahan baraha bulshada socotay baa haddana maanta waxaan aragnay waji cusub oo ah afduub waxaan ku sheegi karaa afduubkii ugu xumaa abid baan ku sheegi karaa anigu kolleyba waana idinla wadaagay asxaabay kolley waad soo aragteen idinkuna dad badan oo walaalaha ka soo hadlay youtube-leyda soomaalida facebook meel walba looga soo hadlay marka anna waa ka aamus kari waay walaalayaalow in qabiil ninka la yiraahdo oo meel tagayn waa idin sheegay runta ka raaca ilaahay ka baqa runta sheega runta ayaa maxay ahayto lagu badbaadi karaa xag walba xag walaaltinimo xag soomaalinimo xag diin runta weligaa ku dhimo runta weligaa been iyo huuhaa iyo kanbaa xiga iyo waxaas looma baahna runta iska sheeg runta ilaaha kugu jecel maxay kaa dhibaysaa runta sheeg runta waxaa la yiri horta sideedaba baash runta la yiraahdo Soomaali waxay ku maahmaadaa Soomaali waxaa la yiri been way sheegtaa laakiin been ma maahmaado runta baash la yiraahdo laba qof kama qosliso runta laba qof kama qosliso taas waa saxiix hadal jir waay laakiin runta ayaa maanta meesha taala waad aragtaan fiidiyoogan maxay ahayd gabadha meesha la geeyay duurka ah oo maxay ahayd lagu haysto waliba hadallada iswadaarsanayaan waad arkaysaan idinkuna marka walaalayaalow waxaan idinka codsanayaa Soomaaliyeey inaad isku duubnaataan oo gabdhaha u heelisaan walaalihiin ah mid walba tan safiye kalimaan gabdha kala imaan doona kuwa kala hore u yimid gabdhaha ha loo damqado gabdhaha ha loo istaago ha laga daayo abuse gabdhaha Soomaaliyeey ha laga daayo waxa lagu hayo rakaatada iyo magaciisiga iyo waxaan mid ma ah laba ma ah saddex ma ah imisaan aragnay masawira lagu reejinaa maalin walba shalay waxay ka soo bilaabatay gabadhii maxay ahayd gabadhii youtuberada ahayd kuwa kala ka sii horeeyay tu kala tin hadana waxa meeqan marayna meeqo maxay ta fadeexadan maalin kasta taagan fadeexad iska daaya bilaa عليك ka xishooda gabdhaha gabar waa idin dhashay waa idin la dhalatay waa idin dhaxda idinka dhalay maxaa ka dheefaysaan gabar Soomaaliyeed fadeexadeed hadda waa kana ninka shalay la soo istaagay jidka oo yiri wax ma qabo anigu wax ma sameyn hadaladiisii oo cad iyo muuqaal ah baa hadda maanta yaala waan idin rabaa inaad idin la wadaago waad arkaysaan haye shalna waxaa la heedeen waa been waa kan waa ka dhac qabyaalad waxaan loo joogin maxay taraysaa qabyaalad war runtu ma qarsoonto ninka xaq la yiraahdo haddii afka laga qabto feeru ka dilaacay gabadhaas xaqeeda maanta wuu soo dilaacay shalay waa igu dhibsanayseen waa igu nacayseen shalay aflagaado waxaa rabtaan baad ii soo qorteen balse anigu waxaan ogaa xaqiiqada qof weyn baan ma ah ciyaal ma ihi caqli igu fin ilaahay waa istiiyay alxamdulilah laakiin reality-ga baan u jeeday anigu shalay markaan lahaa war gabadhan waa laga gardaran yahay war ninkan qabiil ha ku raacina Soomaaliyey aniga mid xiga maanta ma jiro waa ii sameeyay waa laba qofood oo Soomaali ah dhag jalq ma siinaysaan wax ma maqashaan haddeer waxaad leedihiin maxay ahayto maxaa yimid iyo maxaa aragteen iyo waxa meesha loo joogin
gabadhaas Soomaaliyeed oo walaashiin ah u kaca ninkaas maxkamad halala tiigsado falka gabadhaas uu ku sameeyay ninkaas taariikhda ha galo ha ka sheekeeyo nin dambe oo tuug ah yuusan ku dhaqmin maxkamad caalami iyo mid Soomaaliya meeshii doonta ha aato ninkaas maxkamad hala soo taago dambigaas uu gabadha ka galay xaqiisa hala waafajiyaan qaba anigu Soomaaliyeed waxa idinkuna qabtaan in la wadaaga because waa dambiile caddayn baa la hayaa maanta caddayntii ugu dambaysay baa maanta gacanta lagu hayaa marka anigu waxaan leeyahay Soomaaliyeed midooba iska daaya qabiilka ninka xun hal meel aan soo wada jeesano ha laga qabto ninka noocaas oo kale bulshada ha laga dhex qabto baan idin leeyahay haddana ila wadaaga bal fiidiyowgii maxay ahayd la soo diray oo u sameeyay bal ila wadaaga cid islaam uur ku haysa majto subax saga dambarta kugu birayo bulacda kaga to ayna qof islaam ku gaanay wallahi ilaahay uu tigiran qof islaam ku gaanay wadanka diyaana ku gudbiyaan meelaha mooyaan soo moogid korn هذا بريس هذا بروح خبنا لا بلا ku bareys iyo baase hada saaka meesha mad ganacsato joogto maxaad af kala tagtaa sidii guungar laga tuuray ma nalaadash waxaan ka garanayaa dulgeeda loo banarkaya inay tahay qalal waxaan garanayaa dhinaca jooga bariga galbeed ma garanayaa idinkuna falcelintiinana ma aragtay idinka idinka sugayaa anigu barnaamijkayga maanta halkaas ayaan uga baxayaa asxaabey soo daawada fiidiyowga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddii aad ku cusub tahay channelka waa codsi subscribe like share waa anoo walaashiin ah waa anoo ad igu imaanaysaan hadal saxiix ah oon qalad ku jirin been xagga iga dhig run igu kaalay iyo daacadnimo iyo run sheeg haddaa rabto run sheeg ka daawo channelka Caashikiin aad baad u mahadsantihiin Ramadaan Kariim waqtigu ha idin wacnaado waa idinkaasaa intaasaan anigu barnaamijka maanta kaga baxayaa